daray in cid walba oo falkaasi foosha xun soo maleegtay kana dambeysay ciqaab adag ay la kulmi doonto wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa wuxuu isna shir jaraa'id ku qabtay Washington uu ku sheegay in uu madaxweynaha uu xaaladda dilka wariye Jamaal uu ka murugsan yahay Mareykankana uu dul qaadanayo ayuu yiri dilka alxandarrada ah ee loo geystay wariye Jamaal Khashoggi in la qariyo lagana aamuso Pompeo wuxuu intaa ku daray in uu Mareykanka ciqaabayo ciddii ka dambeysay dilka wariye Jamaal una fiisaha dalku galka Mareykanka uu kala laabanayo 22 qof ee la shaaciyay oo falkan looga shakiyay Mareykanka laftiisuna wuxuu beesha caalamku kala kulmayaa cadaadis xoogan oo ku aadan in uu dabciyo xiriirka uu la leeyahay boqortooyada Sacuudi Carabiya madaxweyne Trump oo aqalka cad warfidyaanada kula hadlay ayaa wuxuu sheegay inuu aad uga cambaaraynayo sida ay dilka Khashoggi ay uga hadashay boqortooyada Sacuudi Carabiya wuxuu yiri Nothing that they've done has done well. wax kasta oo ay sameeyeen si khaldan ay u wajaheen ma ahayn mid si wanaagsan looga wada hadlay waxba khalad ahayd inay ka fikiraan falkaasi sidoo kale waxa ka xumaaday qaabka ay falka u fuliyeen iyo waliba sida ay u inkireen waxaan dhihi karaa falkaasi wuxuu ahaa mid waji gabax ah but I would say it was a total fiasco kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ka hadlayay dilkii saxafigii Jamal Khashoggi iyo in uu sheegay in talaabo laga qaadi doono oo aanay Mareykanku ay ku tilmaameen jawaabtii Mareykanku Sacuudigu ka bixiyay aan idhaahdee arrintaasina